kusoo dhawaada akaademiyada hagaag ee hogaaminta iyo horumarinta maanta waxaan noo bilaabanayaa barnaamij dufcada labaad ee barnaamijka xirfadaha guusha nolosha طبعا xirfadaha guusha nolosha muxuu yahay aad iyo aad ayaa uga dhargi doontaan laakiin wuxuu ka kooban yahay 9 xirfadood ee kala duwan ee xirfad kasta loo design gareeyay ama loo naqshadeeyay in ay qofka yani maskaxdiisa horumar gaarsiiso xirfadda koowaad ee barnaamijka xirfadaha guusha nolosha aad ku qaadan doontaan wuxuu noqonayaa xirfadda la yiraahdo critical thinking and decision making iskiilka labaad ee aad ku qaadan doontaan barnaamijka xirfadaha guusha nolosha wuxuu noo noqon doonaa iskiilka la yiraahdo public speaking skills ama xirfadda fagaara ka hadalka iyo hadal jeedinta iskiilka saddexaad ee barnaamijka xirfadaha guusha nolosha aad ku qaadan doontaan wuxuu noqonayaa iskiilka la yiraahdo writing skills ama sida wax loo qoro أنا هاتا مركا إيماني ماشان وحا دادكي آمسنا حكمة ماشان كو قرنو ها جانج يوسف أن آمسنا وهاد إنا دونيز بدل بس أديار وها إنا إسبدل مرمين برامج كان مركا قاتي وحا فهمي إنتا أدنا واحد دونيز بدني إنا يتحينا صدا إنا بدشيد برامج حفظها قوش نولشا وحيالا وكا عاونا وحا كميدا ورمتي نولشا أدكو أنفعايو كو إنا بريتي الشخصية دادا إيو هباد إلهي أكسي وأنا ماش أقوم مهم سنواي maanta waa maalin farxad weyn igu leh waxaan ugu soo biiray akaademiyada hagaag anoo ka qayb galaya dufcadii labaad insha Allah waxaan ka rajaynayaa inuu hadafkayga ii rumeeyo maanta taariikhda beegantaa 22 January waxaan ku soo biiray akaademiyada hagaag qaasatan dufcada labaad ee xirfadaha guusha nolosha runaantii xirfadaha guusha nolosha waa xirfado kaabaya ardayga iyo qof waliba oo rajaynayo inuu horumariyo noloshiisa maadaama lagu dhahay xirfadaha guusha nolosha magacaas baa ka garanaysaa